naagtu si fiican ayay u ogtahay in shaahgeeda wax lagu qasay, balse waxay iska dhigaysaa mid aan waxba ogayn. Waxay qaadaa koobka hal marna way wada cabtaa. Isla markiiba gabadhii shirqoolka waday waxay u malaysataa in qorshaheedu shaqeeyey. Farxad darteed ayay wejiga uga dharbaaxdaa naagtii. Laakiin si lama filaan ah, naagtii ayaa indhaha kala qaaday, gabadhii shirqool wadayna isla goobta ayay miyir beelisay. Daqiiqada yar kadib waxay qabataa cunaha gabadha, balakoonkana ayay ka laadlaadisaa, iyadoo ku leh waxay rabtaa inay ciyaar la ciyaarto. Inta aysan hadalkeeda dhammaynba, waalidkeed ayaa qolkooda ka soo booday. Iyagoo argagaxsan ayay ku hanjabeen inay sii dayso gabadhooda korsan ee ay aadka u jecel yihiin, haddii kale ay si xun uga aargudan doonaan. Naagtii way ogolaatay. Isla markiiba haweenaydii duqda ahayd ayaa argagax awgiis ku suuxday goobta. Marna ma ay filayn inay dhasho qof sidan u naxariis daran. Wax yar bay og tahay inay iyagu iskeed ugu keeneen masiibadan. Waxaa soo baxday in naagtu tahay gabadha dhabta ah ee qoyska maalqabeenka ah. Waxay u adkaysatay silic iyo jirdil aan dhammaad lahayn oo ay kala kulantay hooyadeedii korsatay. Ugu dambayn markii la helay oo dib loogu celiyey qoyskeedii dhabta ahaa, waxaa shirqool u maleegay walaasheedii korsan, waxaana si toos ah loogu diray xero tababar adag ah muddo 6 sano ah. 6daas sano gudahood, maalin kasta waxay u dagaalami jirtay sida halyey, maxaa yeelay keliya kuwa guulaysta ayaa cunto heli jiray. Nasiib wanaag, dadaalkeeda awgiis ma aha oo keliya inay noqotay horyaalka dagaalka ee aan la jebin, balse sidoo kale waxay gashay kaalinta koowaad ee tartan qaran oo xirfadaha kombiyuutarka ah. Ugu dambayn 6 sano way dhammaadeen. Naagtii waa la sii daayey. Waxay ku soo laabatay si ay u soo ceshato wax kasta oo iyada iska leh. Maalintii xigtay, 3dii qof ee qoyska ahaa waxay ugu dambayn isbitaalka ka soo laabteen, balse waxay heleen naagtii oo gubanaysa sawiradoodii. Odaygii aad buu u carooday, isla markiiba wuxuu amray inay guriga ka baxdo. Naagtii waxay tiri, berito fadeexadda ka dhalatay dayaca carruurtooda dhabta ah, magaalada oo dhan ayay ku faa'i doontaa. Haweenaydii duqda ahayd waxay u malaysay inay sax tahay. Kadib oo dhan, naagtu waxay ahayd qaraabadeeda keliya ee dhabta ah. Laakiin gabadhii shirqoolka waday kama ay farxin. Waxay tiri qolkii hore waxaa loo bedelay bakhaar ay ku jiraan boorsooyin naqshadeeye ah oo badan, sidaas darteed qol kale ayaa loo raadinayaa. Haweenaydii duqda ahaydna waxay ku amartay naagtii inay degto qolka adeegaha. Gabadhii shirqoolka waday aad bay ugu faraxday. Naagtiise ma xanaaqin. Waxay raacday adeegaha. Markii ay gashay qolka, albaabka ayaa gadaasheeda laga qufulay, iyadoo loo sheegay in 3 maalmood aan la sii dayn doonin. Waxay isla markiiba fahantay in tani tahay isku day silic. Laakiin cabsideedii meelaha ciriiriga ah hore ayay uga bogsatay xilligii xerada tababarka. Waxay shiday iftiinka taleefankeeda, waxayna aragtay wax aan caadi ahayn oo hoos yaala sariirta. Waxay heshay mas been ah, hadiyad ka timid gabadhii shirqoolka waday. Iyadoo aan dan ka lahayn ayay sariirta ku tuurtay. Kadibna nidaamka amniga guriga ayay jabsatay. Albaabkii iskiis ayuu u furmay, iyaduna si degan ayay u baxda. Isla waqtigaas, qoyska wuxuu qabanayay xaflad dhalasho oo weyn oo loogu talagalay gabadhooda korsan. Inkastoo dhammaantood isku maalin dhasheen, naagta waa la xiray si aysan xafladda u kharibin. Markii ay aragtay gabadha korsan oo la guur doonayo, nalalkii hoolka ayaa hal mar wada dansamay. Mas been ah ayaa lagu dhex tuuray martidii, wuxuuna ku dhacay dhabta gabadha korsan. Qalalaase ayaa qarxay, gabadhiina cabsi ayay ku suuxday. Naagtii waxay dib u shiday nalalkii, iyadoo sacab u garaacaysa waxa ay ugu yeereen jacayl qoys. Martidii ayaa garatay in iyadu ka dambaysay wax walba.